Dunidan aan ku noolnahay waxaa la sheegay in sanad walba ay dhimanayaan 60 milyan oo qof. Hase ahaatee, waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa 10 shakhsiyadood oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansanaa dunida ee geeriyooday sanadkii 2018. Dhammaan shakhsiyaadka aad ku arki doonto muuqaalkan waxay isugu jiraan saynisyahano, siyaasiyiin, fanaaniin iyo weliba jilayaal. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Professor Stephen Hawking, saynisyahankan u dhashay dalka Ingiriiska, wuxuu ahaa nin ku xeel dheer cilmiga maadada fiisikiska, wuxuuna noqday saynisyahankii ugu qadarinta badnaa uguna caansanaa jiilkiisa. Stephen Hawking wuxuu 8 bishii Janaayo ee sanadkii 1942 ku dhashay magaalada Oxford. Wuxuu 14 bishii Maarso ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Cambridge isagoo xilligaasi ahaa 76 sano jir. Qoraax lagu xasuusto oo ka hartay ayaa ahayd: xusuusnow inaad mar walba hiigsato oo aad eegto xidigaha sare, lugaha hoostoodana ha eegin. Tan labaad, weligaa ha ka niyad jabin shaqo. Shaqadu waxay ku yeelaysaa micno, ujeedada iyo noloshuna waxba ma aha shaqo la'aan. Tan saddexaad, haddii aad nasiib u yeelatid inaad hesho jacayl, xusuusnow weligaa hana iska tuurin. Aretha Franklin, haweeneydan waxay ahayd fanaanad u dhalatay dalka Mareykanka oo si weyn loo yaqiinay magaceeda. Waxay fanka bilowday iyadoo aad u da'yar, waxayna mutaysatay in lagu magacaabo boqoradda heesaha loo yaqaano soulka. Waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ku caanbaxda qoobka ciyaarka rock and roll. Aretha Louise Franklin waxay 25 bishii Maarso ee sanadkii 1942 ku dhalatay magaalada Memphis ee dalka Mareykanka, waxayna 16 bishii Agoosto ee sanadkii 2018 ku geeriyootay magaalada Detroit ee dalkaasi Mareykanka. Fanaanadan ayaa sanadkii 2010 laga helay cudurka kansarka. John McCain, Master Kane wuxuu ahaa rugcadaas siyaasadeed oo u dhashay Mareykanka, aadna loo yaqaanay, wuxuuna khibrad fara badan u lahaa dagaalada oo loo aqoonsaday halyey. Wuxuu ka tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee Mareykanka oo uu ku matali jiray gobolka Arizona. Siyaasigan wuxuu ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga. Sanadkii 2018 ayuu u tartamay xilka madaxweynaha Mareykanka, waxaana ka adkaaday Barack Obama. John McCain wuxuu 19 bishii Agoosto ee sanadkii 1963 ku dhashay magaalada Coca-Cola ee gobolka Panama. Wuxuu la tacaalayay cudurka kansarka, wuxuuna 25 bishii Agoosto ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Cornwall ee gobolka Arizona. George H.W. Bush wuxuu soo noqday madaxweynihii 41aad ee dalka Mareykanka. Madaxweyne George Bush wuxuu ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka xilligii dagaalkii labaad ee dunida. Markii hore waxa uu madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa madaxweyne Ronald Reagan, wuxuuna noqday madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyay ee muddo 150 sano gudahood ah loo doortay xilka madaxweynaha. Ciidamada badda ee Mareykanka ayuu ka mid ahaa xilligii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna isagoo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga soo noqday xildhibaan aqalka sare wakiilada u matala gobolka Texas. Wuxuuna 12 bishii Juun ee sanadkii 1924 ku dhashay magaalada Melton, wuxuuna 30 bishii November ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Houston ee gobolka Texas. Barbara Bush waxay ahayd xaaskii madaxweynaha 41aad ee dalka Mareykanka. Barbara Bush waxay soo noqotay xaaska madaxweynaha Mareykanka iyo hooyada madaxweynaha Mareykanka. Barbara Bush waxay ahayd haweeneydii labaad ee abid taariikhda dalka Mareykanka ka soo noqotay marwada koowaad iyo hooyada koowaad ee labadaba, iyadoo marna ahayd xaaska madaxweyne Mareykan maamula, mar kalena noqotay hooyada dhashay madaxweyne Mareykan ah. 8 bisha Juun ee sanadkii 1925 ayay ku dhalatay magaalada New York. 17 bishii Abriil ee sanadkii 2018 ayaa waxa ay ku geeriyootay magaalada Houston ee gobolka Texas. Morgan Tsvangirai wuxuu ahaa siyaasi aad looga yaqaano dalka Zimbabwe, isagoo muddo dheer mucaarad ku ahaa
islamarkaana loolan gelinayay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai wuxuu loolan siyaasadeed geliyay Robert Mugabe isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu ku qanci waayay hanaanka uu dalka ku socdo, wuxuuna sanadkii 2017 ka qayb qaatay isku day wadada loogu xaareeyay in xukunka looga tuuro madaxweyne Mugabe. 10 bishii Maarso ee sanadkii 1952 ayuu ku dhashay magaalada Gutu ee dalka Zimbabwe, wuxuuna 14 bishii Febraayo ku geeriyooday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Sridevi Kapoor oo ahayd atrisho caan ku ah dalka Hindiya iyo guud ahaan caalamka, waxay dad badan u aqoonsanaayeen inay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee xidig sare ka noqota shirkadda filimada ee Bollywoodka. Sridevi waxay taageero badan ku lahayd Hindiya iyo caalamka intiisa kaleba. Waxay ka soo muuqatay 300 oo filin intii ay ku guda jirtay xirfadeeda jilaanimo oo soo socotay muddo 50 sano ah. Waxay ku guuleysatay abaalmarin sharafeedka darajada afaraad ee la siiyo qof shacab ah oo Hindi ah, taasoo lagu magacaabo Padma Shri. 13 bishii Agoosto ee sanadkii 1963 ayay ku dhalatay magaalada Sivaski ee dalka Hindiya, waxayna 24 bishii Febraayo ee sanadkii 2018 ku geeriyootay magaalada Dubai ee wadanka Imaaraadka Carabta. Raquel Mrs. Baland oo ahayd wariye ka tirsan idaacadda BBC Radio 5 Live waxay soo jeedin jirtay wararka iyo barnaamijyada. Raquel Baland waxay tabin jirtay barnaamij looga hadlo kansarka, iyadoo la xanuunsanayd cudurka kansarka ayay ka qayb qaadan jirtay barnaamij caan ah oo looga hadlo arrimaha kansarka. Waxay qormo la wada jeclaystay ka samaysay nolosheeda iyo sida ay ula tacaashay cudurkaas, iyadoo taariikh nololeedkeedana u diyaarisay cunugeeda yar oo hadda ah 4 sano jir. Dad fara badan waxa ay ka yaabisay markii ay si geesinimo leh u shaacisay in la gaaray waqtigii ay dhimanaysay. waxay 21 bishii Janaayo ee sanadkii 1978 ku dhalatay magaalada Kirigway ee dalka Ingiriiska, waxayna 5 bishii September ee sanadka 2018 ku geeriyootay magaalada Kishare ee isla dalkaasi. Kofi Annan isagoo u dhashay dalka Ghana wuxuu ahaa xogayihii hore ee qaramada midoobay, wuxuuna mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize, taasoo ah abaalmarinta ugu caansan dunida. Annan wuxuu ahaa xogayihii guud ee qaramada midoobay. Kofi Annan intii uu noolaa waxa uu diradda saari jiray sidii looga adkaan lahaa saboolnimada, cadaalad darrada iyo cudurrada. Wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee Afrikada madow ka soo jeeda ee qabtay xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. 8 bishii Abriil ee sanadkii 1938 ayuu ku dhashay magaalada Kumasi ee dalka Ghana, wuxuuna 18 bishii Agoosto sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Bern ee wadanka Switzerland. Jamal Khashoggi wuxuu ahaa wariye u dhashay dalka Sacuudiga, kaasoo ku caan baxay dhaleecaynta boqortooyada Riyadh. Khashoggi wuxuu dilkiisa dhaliyay muran xoog leh. Khashoggi wuxuu ka mid ahaa wariyaasha farakutiriska ah ee khibradda ugu badan ku yeeshay saxaafadda caalamka, wuxuuna waraysi la soo yeeshay hogaamiyihii hore ee ururka Al-Qaacida Osama bin Laden. isagoo baxsad ka ah maamulka Sacuudiga ayuu u wareegay dalka Mareykanka si uu magangalyo ugu raadsado. waqtiyadii ugu dambeeyay noloshiisa wuxuu qoraallo lidi ku ah dowladda Sacuudiga ku qoray wargeyska Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka. 13 bishii Oktoobar sanadkii 1958 ayuu ku dhashay magaalada barakaysan ee Madiina, wuxuuna 2 bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dhintay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. haddii aad ka heshay muuqaalka like inaad saarto wax weyn ayay inoo taraysaa.